ويسوي سواء كوسو قادة دورنا سدا لقوا دور قبو وحمالتي شن يتبنات كوحني بنت كده بدأ مقالة بالبلاء مركب وحني بن سياسة هان إن وحني بنين شقو سياسة هان مركان لاهي وحني بيه بس الجامعة مركزو جدان يعودين كليوي وكلو مركب كان لو هيستا متشلو waxaan arkay maanta saddex yaryaroo ka shaqeeya dekada berbera oo soo fadhiista miiska oo leh waa cashuur dhaafaha ugu weyn war run anaa idiin marag furaya adduunyadu tax bayriska way ilaashataa adduunyada gebigeeda tijaar baa xukunto ninka tax bayriskii uu xukumaa waa cashuur bixiyaha ugu wanaagsan Somaliland in loo cashuur dhaafan waxa keenaya caawada aan idin la hadlayo toddoba markab baa ku xidhan berbera lix buu leeyahay warninkaas inaad korsato oo aad ama cashuur dhaaf weydiisto ma jirto ma weydiistee dacaayadda loo samaynayo ee kolba qof loo dhiibayo ma aha arrintu saa maaha arrintu baroortu orgiga way ka weyn tahay ee waxa weeye baadwey waxa weeye layma coday codkii ninkan weli ololihii buu ku jiraa inuu kursi helay weli uma haysto Cabdiraxmaan Ciro waxaan sheegayaa saddexda yaryar ee shaqaalaha idinku mishaarkiina yaraabad ayaad ilaashateen ninka inuu wax baraxa ahayd Cabdilaahi Xasan aadan buha Cabdilaahi nama oran karo hadal annaga nama oran karo saddexda yaryarna waxaan leeyahay haa in cashuurta loo dhaafuu leeyahay waayo hanti ka badan buu ku soo geliyaa in la maslaxuu leeyahay in la ilaashaduu leeyahay in aan wax la akeenin buu leeyahay laakiin innaga mushkiladda ilaa ayna haysata intii ilaahayna abuuray waxa weeyaan xasad iyo aniga maan helo iyo aniga haddaan lay baadin iyo aniga imuu codayn iyo taasaa soo korodha imigana marka waxa weeyaanuun waa cugdad siyaasadeed tani ma aha lagumana sababayn karo cashuur iyo cashuur dhaaf iyo cashuur bixin ilaahina been u sheegtan baan leeyahay saddexda yaryar afkii xukuumaddan way ku hadli kari weyd afkii wasiirkuna uu hadli kari waaye halkaa waxaa idinka muuqataa in arrinta jaamac Omar ee markabku ay tahay siyaasad waan cambaaraynanaa mar hore shalayna waan ka hadlay dadkuna caado xoogan annaga suuqa dhex joogna annaga ummadda matala ayaa laga muujiyay waa gaf siyaasadeed واقف موادنمو واقف أنا لقف لين عرو ما حقولي ما دحوا لا كل واحد يستا مركو أفرت مركب عرقلة ذيو عرم هو هيستا يوي ما ده سيدي ود الاعتراف سيء هايو كمان بكرا عشور بحية أيو عرق يسكن نقدق مياه وارينا بسسبته وهاد العكا قادته وهدي دقال دعاد العكو السيء تجارته ولا إلى شدا إلا من يجيبيو جامع النور للعكو في الرقم ما سياسة جامع عمر للعكو في الرقم سياسة معها جامع عمر لنتقال له اسكدر كفر الرقم معها ومحسن صدق بحيها وقوين وي مش هيكتنا لما نصوره من يقوقي والله انه نجلانك مع عاود جامع عمر يا وحي خيري يا ادرك لقى بحيو والله تجا قعدت أقول إنسان لكن كمان ضمقت كمان فانو أركنا على كم موجين نبغى ما أركو وهاي وح أركيا إن وحنا سياسة هاي عبد الله حسن هذا عشورته هذا هدي لها أديك شيك لها أديك بيامين لها عبد الرحمن عرّي هداني سياسة هن هذا أقول لها هدت كبين بالله شيء يعني سياسة ما يستمر أنا هاو إما جوا حلاها ما ها عشور ضعفها وجوين أو عشور بحيها وجوين سومالان والله ما قدرت وعشور بحيها وجوين هدو الباب هذا حلو ما يسمون كل حب اختيار مع الريال ما علم بس نسكو إرينا ريا وقت قلنا قد عينه ما علم بس نسكو على سنة عارض عتكاء هاي سكوا ما تأكتر ذاك هاجبهانه وكوري مصبح دقالها دلك ورهم ما تعد لا تشوقه وتلد وهاونيان dadka jabadoodu waa haawanayaan mushaarkii shaqaalaha lama bixin wasaaradaha labalaba bilood leh waan ognahay xaaladda dalka dhaqaaluhu ma fiicna
haddana intii yareed 40 nina bixinaya in lagu galgasho ma fiicna waxaan leeyahay ma aha cashuur dhaafaha ugu weyne waa cashuur bixiyaha ugu weyn irana waxaan leeyahay dee siyaasad waad ku jirtaa biriba doorasha doonaysa dilba sanad baa dhacay bahashuna waaba 4 waraaqood doorashadu biriba way taaganta adoo sidaas imanaysaa wallaahi marka haddaad siyaasad ka quusatayna kuma noqdayna nagu taagso haddaad siyaasadoon tahayna intaan kuu codan jiido ninka siyaasigii ninka ka sii jeedu soo jeedsadaa ninka siyaasigii intaan u codayn bi doorka dambe xooga saara laakiin dad sidii uun bas u saaran baskii wadani kaasina cishaan noo codayn kaasina cisha mas-uuliyiintooda oo dhan ayay ka muuqataa kaasina berigii aan mucaaradka ahaynba maxay nagu yidhi kaasina war wuxuu ma ina guumoydaba waxaan leeyahay saddexdaa yar ee laga hadliyey layidhi waa cashuur dhaafaha ugu weyn maaha cashuur dhaafaha ugu weyn waa cashuur bixiyaha ugu weyn friisoonka dekadda ayuu leeyahay marka ka siliidda caydhin isagaa leh dekadda db wall 6 markaboo kale ugu xidhan wasiiradii jiingadda wasiiradii muxuu ahaa wax aanu dalka keenin ma jiro waxaan leeyahay ganacsatadana haddaanay qaar kula socon qaar ilmaadeerada ayaa kula socday oo haddaadna amaahaysaan maxamed aw siciid aad lahaydeen shalay de haddaad guulaysateen maxamed aw siciid soo sharaf un helo maaha de haddaad guulaysateen soo inta la midkiina sharaf hesha maaha maxamed siciid macid laakiin haddii laga helo soo nin maaha sacad muusaa waxaan leeyahay arrinkan waa arrin siyaasadeed jaamac umaarna waxaan leeyahay markabkaasi ha ku gubta meesha lacag bixisa wad haystaa waana arrin siyaasadeed mana aha dhaqaale cabdilaahi xasan carwa kaasa ha faahfaahiya haddaanay siyaasad ahayn carwa kaasa madaxweynuhu ha faahfaahiya haddaanay siyaasad ahayn meeshan waa siyaasad waxaana loo jeedaa jaamac omar waxaana la leeyahay namaad maalgelin ololihii waxaa la leeyahay ama habaan ku weydiisanoo namaad siin waxaa la leeyahay waad naga codaysay waxaa la leeyahay beeshaadii baa codaysay waxaa la leeyahay muuse bixi baad la socotay waxaasaa lagu aargoosanaya waxaasna ayna wadi maayaan waar mid yeelo hagaag bahasha u kala guucayso dumiba silcu ma fiicna moogta bahasha gacantaad u qaadee hagaag u kala googoo adigoo laascaanood maanta xasan sheekh soo degayaad xooggaagii saartay jaamac umar markaasa caqli ah ilaah baan idinku dhaariyey kiyoo xasan sheekh iyo ra-iisul wasaarihiisa imanayaan ma caqli baa ciidamadii bay ka dhex jirtaa saraakiil guuto oo la soo bedelay caawaa jira kuwa hore loo bedelaa jira ciise ganay oo waaxda maamulka oo korneela maalin dhaweed laga qaado weliba kuwii abtiga aanu ahayne maxamed cabdigi uu ka qaado nin reer nuura u magacaabay ma xishooneen waxani ayaa jooga waa korneelkii saddexaad caawa la sheego la soo bedelo korneeladii bay ku socotaa waxay ku socotaa ganacsigii waxay ku socotaa muxuu ahaa tijaartii waxay ku socotaa dhaqankii oo odayaasha guddida hoodaa leh dhaqan reer bay matalaan oo waa guddi la doortay laakiin saaka waxaa ka mudan kuwii carruurta qoorta ka goynayee muxuu ahaa gacan libaax war waxaan leeyahay cabdiraxmaan ciro ilaah baan kugu dhaariyey bahasha gacanta u qaado faatir ka kala dhig afarta gaari annaga xaggaana la yaalla inamadba sida ugu noolaan ugula dagaalamayaan waan garanaa cidday u daran tahay balan eegno marka waxaan leeyahay inamada yaryare waa cashuur muxuu ahaa waa cashuur loo dhaafaha ugu weyn maaha cashuur bixiyaha ugu weyn waa cashuur bixiyaha ugu weyn inaad haysatay ahayd inaad jeebka ku haysatay ahayd waa inadeerka waa dilkeennii maxaad dhaafsatay hanti ku soo gashay dhaqaale maanta miisaaniyadda kugu jira wallaahi hadduu 3 bilood xeraysto in lagu kala yaacayo marka waxaan leeyahay inamada yareer bariiskiina waad ilaashateene ilaahow bariiska meel xun ha naga gelin ilaahow bariiska cudur ha naga gelin ilaahow bariiska ku cudur aan ka qaadna ha naga gelin ilaahow bariiska basaas ha naga gelin ilaahow bariiska munaafiq ha naga gelin ilaahow bariiska bilaa muwaadin ha naga gelin ilaahow bariiska gaalnimo ha naga gelin ilaahow bariiska cimri degdeg ha naga gelin ilaahow bariiska meel xun ha naga gelin waxaan leeyahay bariiskaa meel xun idinka galaye jaamac oomaar seed maaha ninka sidaa la yidhaa jaamac oomaar seed waa cashuur bixiyaha ugu weyn
وانك ugu mudan وانك lacagtiisa laga nabad galay وانك muxuu ahaa ugu hantida muxuu ahaa khayriga bixin badan meel wax laga dhiso iyo meel wax loo doonto oo lagu soo qadami jiray Jaamac Umar war waa hanti inoo taale waa tagis beeyere siyaasadda ka daayo weydi ka socon weyde Cabdiraxmaan Ciroy doorka dambaanu 90% ku codayne calool xumada iska daayo siida markabka وبالله التوفيق هذا عبد العلي اللي هلقى هرقس